السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصحابتا dhamaantiin waa idin salaamay soo dhawaada kusoo dhawaada janalkiina janalka Faiza's World. Marka hore waxaa aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa daawashadiina quruxda badan la socodkiina kommentiyaashiina daa'iman ay soo qortiin oo ducadii amaanta leh aad iyo aad ugu mahadsantihiin waxaan idin leeyahay jazaakumullahu alif khair. soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah videoga like dhaha like noo saara videoga insha Allah like badan noo saara share gareeyna gabdhaha asxaabtiin u share gareeya haddii aan cusub tahay marka ugu horeysa aan soo booqatay waa kusoo dhaweynaya waxaan ku leeyahay soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow janalka subscribe ka taabo gambaleelkana fur si videoyaasha cusub aan soo gelin si toos ah ugu aragtid insha Allah si toos ay kugu soo dhacaan aad iyo aad aan ugu mahadsantihiin dhamaantiin asxaabta soo dhawaada maanta videogeena waxaan uga hadlaynaa huruudda faa'iidada ay noo leedahay dhinaca qurxinta iyo dhinaca caafimaadba waxaan ku sameysanaynaa golden milk ama xaliib dahab ama anaka waxaan leenahay caano dahab aan leenahay huruud waxa waaye caano lagu karinayo oo maasha Allah caafimaadka aad iyo aad ugu fiican caafimaadkeedana aan la soo koobi karno maasha Allah sidoo kale waxaan ku sameysanaynaa maaska oo wajiga loo isticmaalayo iyo gacmaha iyo qoorta yacni haddii la rabana waxa waaye jirka dhan loo isticmaali karaa maaskadan maasha Allah waxa waaye asxaabta gudahana waa ka qaadanayna gudahana waa ka cabaynaa banaankana waxa waaye maaska uga dhiganaynaa isbuuc leh haddii la wadana maasha Allah waa yaabaysaa quruxda yacni jirka gudaha iyo banaankaba kaaliska arag waxa way kaanaysaa sidii dahabkii oo kale yacni midabkaaga wuxuu noqonayaa dahabi aad u qurux badan oo dhalaalaya marka soo dhawaada asxaabta haddana waa bilaabanaynaa waxaan ku bilaabanaynaa marka hore caanaha golden milk caanahaasaan samaysanayna marka hore huruudda aan ka sameysanayno marka hore digsiga waxaan kusoo shubtay caano 2 bakeeri oo caano ah caanaha marka wax yar ay soo kulaadaan kabacdi waxaan ku shubanaynaa alaabteena kale insha Allah haddana waxaan kusoo shubayaa huruudda marka waxa waaye qaadada yarta ah nuskeeda waaye huruud badan ma u baahno huruudda waxa waaye asxaabta cudurro badan ay daawo u tahay infectionka oo kale waxa waaye daaway u tahay waxay la dagaalantaa jartuumada yacni bakteeriyada xun ay dishaa waxa waaye antivirus manaacadana way xoojisaa yacni difaaca jirka ay xoojisaa waxay kale u fiican tahay lafa xanuunka caloosha qaaloonka waxay kale daawo u tahay infectionka oo beerka ku dhaco cudurrada maskaxda ku dhaco kale waa u fiican tahay maasha Allah qandhada influenzada yacni cudurro badan ay daawo u tahay huruudda maasha Allah huruudda marka asxaabta waxaa jira kaniini oo laga sameeyo oo farmashooyinka laga helo kaniinigaas sidoo maasha Allah faa'iido badan ka buuxdo waxa way korkomeenka oo huruudda laga helo kaniinigaas sidoo uu ku jira kaniiniga marka maasha Allah aad iyo aad u fiican yahay aad iyo aad u faa'iido badan yahay hadii oo kaniini ahaan loo qaatane haddana waxaan ku darayaa sanjabiisha oo freshka ah way on soo hoolay sanjabiisha marka waxa way asxaabta ikhtiyaar way hadii aad rabto ku darsan kartaa hadii aad rabinna waa iska dhaafi kartaa haddana waxaan ku darayaa filfil waxa waaye filfil shiidan filfishan waxa waaye asxaabta muhiim way marka caanaha saan camal loo sameynayo caanaha huruudda laazim in lagu daro waaye filfisha لأنه waxa waaye huruudda iyo filfisha way isla shaqeeyaan sida yacni vitamin D ga iyo calcium ka isku la shaqeeyaan oo kale waxa waaye hadii oo huruudda kaligeed caanaha ku karisid oo dhahdo waa cabaaya si fiican kuugu shaqeynayso marka filfisha in lagu daro waaye si ay si fiican noogu shaqeyso filfisha marka waxa waaye laazim in lagu daro waaye waxa kale ku darayaa wax yar oo qorfo shiidan maasha Allah waxa waaye qorfaha wuxuu siinayaa dacam aad u fiican yacni dhadhan fiican uu siinayaa marka hadda dab gaaban aan ku karinayaa dabka u gaabinayaa waxa sugayaa marka ilaa ay soo karayso waxaana fiican dabka in loo gaabiyo oo si tartiib ah u soo karaan caanaha hal mar hadii ay soo kartana waxa way khalaas way markaas diyaar ay noo tahay dabka waa ka daminaynaa waa kana haddana asxaabta maasha Allah caanaheena oo ka sameysanay huruudda saani diyaar noogu yihiin maasha Allah golden milk ama caanaha dahabka kaaliska arag kusoo bixeen dacamkoodana kaaliska arag si u macaan yihiin maasha Allah tabaarakallah aad iyo aad u macaan yihiin sokorna ma u baahna in lagu daro waxa waaye hadii aad u baahan tahay macaan waxa ku darsan kartaa malab laakiin ani sokor ma ku darsanaay malabna ma ku darsanaay sidooda ku cabaaya insha Allah yacni qofkii oo macaan la'aan ku cabi karo caadi waa ku cabaaya qofkii aan ku cabi karin waxa waaye malab ku darsanaya markaas insha Allah caanaheen huruudda aan ka sameysana hadii meeshaan uga baxno haddana waxaan noo sameynayaa maaskadii face mask aad u fudud faa'iido badan wajiga u leh oo maasha Allah huruudda aan ka sameysanayno marka soo dhawaada asxaabta marka hore baaqul waxaan ku soo shubanaynaa huruud hal qaado oo huruud huruuddan waxa waaye asxaabta skinka aad iyo aad ay u qurxisaa nabraha wajiga gala waxa waaye way ka qaadaa daaway u tahay wajiga bakteeriyada ka dilaysaa madmadowga nabraha ay uga tagaan wajiga way ka nadiifisaa huruudda sidoo kale waxay u fiican tahay haaraha wajiga galana aad ay ugu fiican tahay wajiga way ka qaadaa
sidoo kale wajiga gaduudta oo xasaaska ahna aad iyo aad ay ugu fiican tahay waxa waaye huruudda skinka aad iyo aad ay u qurxisaa asxaabta isla ogaada insha Allah. waxaa kale ku darsanaynaa hal qaado oo caano ah, caano booro. hal qaadaan ka isticmaalayna kulligood hal qaadaan ka isticmaalayna. caanahana waxa waaye asxaabta caano booraha wajiga way nafaqeeyaan maasha Allah, wajiga way kobciyaan. iyo waxaa kale ku darsanaynaa hal qaado oo nasha ah ama waraango ama cornflour. nashada iyadana waxa waaye wajiga way cadeysaa, way jiideysaa dulduleelka wajiga saliidda ah waxa way soo toobaysaa, way yareynaysaa, wajiga liishay ka dhigtaa nasha maasha Allah. sidoo kale maaskaadka isku qabataa, hal kareemay ka dhigtaa maasha Allah. waraangada waxa waaye maaska kasta oo la sameysanayo ma ka maqno, laina waxa waaye haddana maaskada way isku qabanaysaa, halay ka dhigaysaa, hal kareemay ka dhigaysaa maasha Allah. maaskada marka waxaan ku qasanaynaa yogurt. yogurtkana isticmaalaynaa 2 qaado oo waxaan isticmaalaynaa oo yogurt ah. ma wardi iyo waxyaalo kale ma isticmaalayna, waxaan ku qasanaynaa maaskada yogurt iyo liin dhanaan. yogurtkan waxaan ka isticmaalaynaa 2 qaado, labadaas qaado ay noogu qasmaysaa markaas maaskada iyo wax yar oo liin dhanaan ah insha Allah. haddana waa isku qasaaya, si fiican isugu qasaaya, si fiican isku dhexgelinayaa, si fiican in loo qaso si aan u helno maaska qurux badan oo creamy ah. ما شاء الله أصحابتي وكاساس إنه كسب بحذي ماسكدين ماسك عاد قروح بدني كسب بحذي ناعم كال إسكارك استعمال كذا نحاول استعمالها وجهك قارته قعمها لغها يعني جرك ماشي أربطه استعمال كرته. ماسك وحواي ما شاء الله تفتيح له وجهك عدينيسو نبرها كقاديسي مدمدوغا waxay kale u fiican tahay gadgaduudka wajiga galo, wajiga way dejinaysaa, way qaboojinaysaa. wajigan waxaa fiican markii maaskada la marsanaayo in oo wajiga markii la marsado qoorta la mariyo si oo wajiga iyo qoorta isku ekaadaan. sidoo kale gacmahan in la mariyaa fiican maasha Allah. lugaha haddii aad rabto marsan kartaa. yacni maaska waxa waaye jirka oo dhan loo isticmaali karo oo jirka xariir ka dhigaysa maasha Allah. maalin kastaan la isticmaali karaa maaskada wajigaaga haddii oo finan iyo madmadow aa ku leedahay iyo haare aa ku leedahay. yacni haaraha waxaan ka wadaa haaraha khafiifka ah haddii aa ku leedahay waxa waaye maalin kasta haddii aa isticmaashid yacni maalinba maalinta ka dambeyso way kaa baxaysaa, way kaa dhamaanaysaa. aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadiina. waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin aa ka wada hesheen videogeena maanta. haddii aa ka hesheen videoga like dhaha, sharena u dhaha gabdhaha asxaabtiina iyo ehelkiina. insha Allah waxaan oo balan videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa khayr badan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.